waxaa laga yaabaa dhalinyarada halkan joogta qaarkood inay 20 jir yihiin in ka badan 15 sano inay dagaal argagixiso kula jiraan welina ay kula jiraan doodooda maantana ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada waayo waxay aqbaleen argagixisada in anagu aanan diin wadaagin waayo inteena halkan joogta gaala ay noo yaqaaniin waxay dhalinyaradu noo sheegeen inaanan argagixisada calan la wadaagin waayo ma ogola calankeena mid madow ay samaysteena waa leeyihiin waxay dhalinyaradu noo sheegeen inaanan dhul la wadaagi karin argagixisada sababtoo ah argagixisadu waxay aaminsan yihiin inaanay xuduud jirin annana waxaan aaminsanahay inaan difaacano xuduudaheena cir dhul iyo badba waxay wiilashay gabdhaha Soomaaliyeed og yihiin inaanan magac la wadaagi karin argagixisada sababtoo ah Soomaalinimada way inkirsan yihiin waxay doodani dhab u tahay inaanan dad la wadaagi karin sababtoo ah waxay aaminsan yihiin qof walba in la dilo horumar ma aaminsana waxay aaminsan yihiin dib u dhac sababtaas daraaddeed ayaa dhalinyaradeena maanta doodoodu ay tahay dalkeena argagixiso uma ogolin dalkeena musuqmaasuq uma ogolin tusaale yar oo tixraacaya sida argagixisadu ay uga soo horjeedo jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay mid kamida mashaariicda dalka lagu fuliyo waa dhismaha wadada u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo Afgooy wadadaas haddii la dhiso waxay taageeraysaa dadka dhaqaalaha yar ee ka ganacsada khudradda waxay dhiirigelinaysaa ganacsiga waxay xalinaysaa isu socodka hooyooyin aabbayaal iyo carruur waxay isu dhaweynaysaa magaalada Muqdisho iyo magaalada Afgooy intii wadada dhismaheedu uu socday oo dhammaan doonta haddii Ilaahay yiraahdo 2 bilood gudahood iyadoo u dhisan si heer sare ah waxay argagixisadu soo weerartay in ka badan 11 wado dhul lagu dhisaayo oo loo dhisaayo shacabka Soomaaliyeed qofka raba inuu ummadda ka hor istaago diinna lama wadaago dalna lama wadaago dhulna lama wadaago calanna lama wadaago waa inaan iska celinaa haddii aan Soomaaliyeed